إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد عباد الله ربنا سبحانه وتعالى wuxuu nagu hanuuniyey jid kasta oo toosan iyo dariiq kasta oo toosan ayuu rabbiga nagu hanuuniyey subxaanahu wa tacaala jidkaas oon wanaag adduun ku heli karno iyo barwaaqadii iyo jid kasta oon shuruurta adduun iyo dhibaatooyinkeeda kaga badbaadi karno sidoo kale rabbiga subxaanahu wa tacaala wuxuuna tusaaleeyey oo noo muxuu bidhaamiyey dariiq kasta oo wanaag aakhira ku heli karna sharteedana kaga badbaadi karno sida awgeed ayaa rabbigan subxaanahu wa tacaala waxyaabaha ugu waaweyn oo nagu muxuu ahaa irshaadiyey ama na tusaaleeyey nagu hanuuniyey noo bidhaamiyey ay ka mid tahay in hadal wanaagsan nagula hanuuniyo alqowl alxasan rabbiga wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala markuu ka hadlaya khiyaartii mu'miniintii wanaagsana wahuduu ila at-tayyib min alqowl hadalka kiisa wanaagsan ayaa la tusiyey hadalkiisa wanaagsan ayaa lagu hanuuniyey hadalka kiisa wanaagsan ayaa la jeclaysiiyey hadalka kiisa wanaagsan ayaa looga dhigay dariiq ay maraan oo bacwaan ah saas ayuu rabbiga leeyahay subxaanahu wa tacaala addoomaha iyaga marka waa addoommo nasiib badan waa addoommo baariyaal ah oo kor loo eego waa awliye rabbiga subxaanahu wa tacaala ka baqan lidalika nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu noo caddeeyey jannada inay qolal ku yeelaan iyo guryo ay ku yeelaan guryahaas oo gudahooda wixii ku jira bannaanka laga arko wixii bannaanka joogana gudaha laga arko oo aad iyo aad u qurux badan nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam guryahaas rabbi wuxuu u diyaariyey siduu caddeeyey nabigeena sala allahu alayhi wasalam afar kooxood ayuu rabbigan subxaanahu wa tacaala mid ka mid ah u diyaariyey amaba afartaba qofkii kulansado tan koobaad waa dadka quudiyo cunnada ayay maxuu yutcimuuna aطacaama calaa xubbihi miskiinan wayatiiman waasiira waxa weeyaan cunnada ayay siiyaan dadka masaakiinta ay quudiyaan tan labaadna وألان الكلام hadalka ayay dabciyaan oo hadal wanaagsan oo muxuu ahaa dhib aan lahayn xanaf aan lahayn ay khalqiga kul dhaqdaan sidoo kale soonkana oo isdaba dhigaan sidoo kale habeenkina dadka markay khoorinayaan ay hurdayaan ayay muxuu ahaa qiyaamul layl ila imaadaan dadkaas marka waxa kamid ah sinfiga ah wa alaan al-kalam dadka muxuu ahaa hadalka dabacsan iyo hadalka wanaagsan ku qowlaan guryahaas iyo qolalkaas qiimaha badan oo nabigeena cadeey sallallahu alayhi wa sallam ayuu rabbi ku abaalmarin doona maalinta qiyaame lidalika culimada islaamka qaybo kamid ah waxay yiraahdaan qofka mu'minka ah inuu hadal wanaagsan rabbigeen subxaanahu wa tacaala ku ilhaamiyo diinta islaamka nuskeeda qof la imaaday ama qof muxuu ahaa ku dhaqmay ayuu la noqonayaa markuu rabbiga subxaanahu wa tacaala ku waafajiyay inaad hadalkaada kontaroosho inuu hadalkaada toosnaado inuu hadalkaada wanaagsanaado in hadalkaada laga badbaado in hadalkaada xumaan laga dhowro in hadalkaada uu kontaroolan yahay shaki ma lahan wax badan oo diintaada ayaa ku badbaadi weeyaan diintaada in badan oo kamid ah ayaa ku badbaadi lidalika rabbiga subxaanahu wa tacaala aad iyo aad ayuu dhankaas in hadalka la wanaajiyo وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نبي محمد عرب كيسا إن بدنا كمد أي ربنا سبحانه وتعالى نغفر يا عرب إن أنتوسينا محيا لي راتك كدلنا أو ناق بدن يعرب ناق كدلنا نتيجة محوها أنا سيرتينين أو مربع اللوينين أو محوها كدلنا ليسان انتهيضا سيدا درتت أيا إن هذا الكلا وناجيه وهذا أنت أكتاجنين لقوها الله وهذا التوصل لقوها الله sidaas ayaa asal la weeyaan sidaas ayaa asal la weeyaan oo hadal qaloocan ama hadal muxuu ahaa garaar la
أما هذا اللي يرى حنفلة إن الواحد لحالة أي بنانته ويجريسه لكن أصل أهان قفك مؤمن كحالة ديسة طبيعي وإن هذا التوصن كهذا ويان أرنت أيضا مركب وحي كل من يسا بشر ذكرنا كل من يسا لذلك ربنا وحده سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا وردتك هذا الوناسا أودها مؤمن لمدهن متقي لمدهن قريب لمدهن يسدودهن لمدهن مدى صاحبتهن لمدهن مدى يسوقشهن بل ربنا سبحانه وتعالى وحده وقولوا للناس حسنا وردتك هذا الوناسا كل هذا ساس أي ربنا الله سبحانه وتعالى marka dadoo dhan ayuu kulminayaa muuminki iyo gaalki qofki ilaahay ateecay kii ku caasiyay kii ku dhawaay kii ka foga kii ku raacsanaa iyo kii ku diidana intaba waxa weeyaan waa soo hosgalay ayada marka qofki naftiisa caada ugu yeelo inuu hadal wanaagsan ku hadlo naftiisa khayr oo dhan way u hoggaansamaysaa maxaa yeelay waa sadaqa naftiisa ay ku tahirmayso nabigeena sallallahu alayhi wa sallam xadiis sahih wuxuu leeyahay kalimad kasta oo ku hadasho أو وناكسن وصدقة أي النبي قال صلى الله عليه وآله وسلم كلمات كستوت هذا شو أو وناكسن وصدقة أنا دقار أنا قعدت كبحنين ونعمة أدوين لذلك الحافظ ابن بطال في شرح لصحيح البخاري وحوليه أها شرعها كلمات وناكسن صدقة أي وحوليه قفك مركي صدقة الله سيه وحولك عنت الله صار وكفرحي وأنا وينيسنا أرنت أيضا وحوين بواركيا sidoo kale kelimada wanaagsan iyadna qofka marka la yiraahdo uu ku farxaya marka wajhu shabaha waa dhankaas farxadda iyo dhiirigelinta qofka iyo qalbigiisa ay wanaajinaysa ayay sadaqada iyo kelimada suuban iska shabahan ayuu leeyahay waxaad arkaysaa marka waqtiyada hore noqotaya iyo waqtiyadan hadda aan joogno iyo waqtiyada dhaha mid ay noqotoba kelimad wanaagsan qof ku hadlay ayaa laga yaabaa inay qof bini aadan ama qof muslima xayaatadiisa iyo bal inta ku heereersanayd iyo mabata hatta umada ka dambeeyay inay ku bedelmaan lidalika kitabkan ataqanan oo sahih al-bukhari asahhu kitab ba'da kitab Allah azza wa jalla kalimat unin sheekh imam al-bukhari ku yiri ayaa ilaahi subhanahu wa ta'ala sabab kaga dhigay innaka tadubbu al-kadhiba an hadith rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ruya ayu ku riyooday isagoo muxuu ahaa marwaxad ama hujis ama bis waxa tiraahdaa haysto oo muxuu ahaa nabiga babina alayhi salatu salaam ayaa muxuu ku riyooday kadibna culimadii kamid ayuu u sheegay markaas wuxuu yiri innaka tadubbu al-kadhiba an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam kalimada ayada ayaa waxay ku bixisay in ahadiista sahiha intii uu ka gaaray oo kitaabkaas iyo sifrigaas aad ku qiimaha badan oo markii quraanka laga soo taagay kitaabka ugu saxiixsan uu yahay inuu alifo ayaa waxa weeyaan sabab ay u noqotay weeyaan mar kelimada wanaagsan in qofka uu ku dadaalo oo ku dhawaaqa dhaqan u noqoto caado u noqoto dadka muxuu ahaa uu dardaarmo laga marmaan weeyaan wax badan baa muxuu ahaa ku qabsoomi lidalika nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuxuu leeyahay qofka alla iimaaninta qiyaamada rumeeyay hadal wanaagsan ha ku hadlo ama afka iska qabsado yuusan hadlinba kelimo wanaagsan ka soo baxdo waliba waxa inta dheeriya nicamta ama nicmada nutqiga iyo dhawaaqa mid adiga aad keensatay ma ahan ilaahay subhanahu wa ta'ala isaga ayaa kugu manaystay tafaddulan wa ni'matan wa ataa'an wa minhatan minhu rabbuna minhu tabaaraka ta'ala wa fadli ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku siiyay shil inshallah kugu joogin jah iyo muxuu ahaa aadan ku helin awoodada marka mantiqa isaga iyo hadalkaas qiimaha badan iyo awoodaas uu rabbi ku galiyay inaad u adeegsato wanaaga waxaa keensani shukra hadihi nicma nicmadaas ayada lagu siiyay shukrigeeda keensani weeyaan marka qofka muuminka ah in waxa weeyaan uu aad iyo aad ugu dadaal carabkiisa inuu dhowro hadalka wanaagsan uu ku hadlo laga marmaan weeyaan waliba waxa aad arinta ay u sii adkaan ay u sii weynaanaysaa markaad ogaatid in ibliis uu joogto u taagan yahay waligiis uusan muxuu ahaa zuulayn kelimad kasta oo qofka ibni aadan ka soo baxday muslimka wuxuu isku dayayaa inuu muxuu ahaa fidna ka abuuro wuxuu isku dayayaa inuu muxuu ahaa dhibaato ka geysto wuxuu isku dayayaa inuu muxuu ahaa ujeedkii isaga u lahaa ummadan inuu muxuu ahaa halaago ummadan in muxuu ahaa iyo naar galaan ummadan inay rabbi subhanahu wa ta'ala ku caasiyaan ummadan inay islaayaan ummadan inay kala go'aan ummadan inay kala guuraan ahdaaftiisi iyo ujeedooyinkiisi inuu ka xaqiijiyo ayuu isku dayayaa lidalika rabbigan subhanahu wa ta'ala isagoo arinta ayada difaac iyo horjeero nooga dhigi ayaa rabbi wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala
وقل لعبادي يقول التي هي أحسن نبي محمد أدومه قعد كتر هذا الكمحوها أما تي وناقب بدنيد هكذا واقعنا محايا لي شيطانك أيا كلمة دي بدلي شيطانك أيا كلمة دي محوها استعمالي شيطانك أيا دباتك إنساني أو قلوبتي النبر أجيسني لذلك كلمة دي ركاسو بحضي أو حتى أفير سنين أيا لقيا دباتي وين آد وين يكنسطو أو محوها رير بربريسو أو ولا لك لجيسو أو أمد اسكو في عند محوها كلا تورته أو لقيا إن أمد أمني يوانا كسقنيت أيو كنت إن يدقالمان أو دباتي سجيستان أو نفوس حرامه إن لديله هل كأيكو بحضه أموال إي حرام محوها حرامه إن لعنا أما بلقاته هل كأيكو بحان فروج حرام أيهيد إن محوها لدباتي أما صار محوها لا هذا هل كأيكو بحان وما إلى ذلك مركا كلمة داس نوع يضع إلا سكدورة ربك سبحانه وتعالى آدب نوجدجي وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم لحد هذا أيوم محوها كلجينا يا أو كلمة داس لقد واقعي أي وحكا رجاليا تكأ يمحوها قل كتب وما تكون كلجي ربك الله سبحانه وتعالى مر كلمة وناكسن أظنك حكوا جارا إنه ربك سبحانه وتعالى جعلاده إنه رضاه الله إنه هلا يكون جارا سيدوك الخلق غير جعلانا لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حلية متكين وحكوها الله كلمة داس وإلهي سبحانه وتعالى رأى لها شديسة اسم لهين إسجا ماشي أي جارته أي درجة أي منزلة وكو جاري في الدنيا وفي الآخرة إنه جارة اسم لهين لكن ما ننت قيامة آيات إلهي سبحانه وتعالى وحوآت وقردونا وحاد وبضن أورها لها شديسة سويان مركا كلمة ده صوبا أو ناكسن كلمة ده صوبا أو ناكسن قفك كل واقع الدون كما يكون أنفع ذا أرنتيسا يشأن جيسا ما ننت آخرة أي كرو قاده ولما أنت وحكسي درن بدبادة أي نار كذا نقطة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حلي والنار تكبقة والنار إسكجا حجابة وإسكجا إلالية صدقة ولو تمر جبكت بها النقطة ولو بشق تمرة قفك أن محوها تمر جبكت هلي كريم النبي صلى الله عليه وسلم حليه فبكلمة طيبة كلمة صوبا أو ناكسن محوها النار تأسكجا دورويا مر كلمة صوبا أو تقول أواقيسه حجاب إيه ستري إيه دفاع أي كذا نغني سنار تويان نسأل الله السلامة والعافية مركزتك إلهي سبحانه وتعالى أوافجي عرب كود إلى كنترولان إن أي كلمة وناس قلب جودا كقبتان عرب كانوا كعبروا محوها وكسبها ورب سبحانه وتعالى وافجي ذاتك أيها كلمة التوحيد كأي الله وافجنا يا النبي صلى الله عليه وسلم مركز لويدي أبو هريرة ويدي يا أبو محوها دواشة بدن يا أبو حبون inaad maalinta qiyaama shafaacadaada ergadaada janno aad ugu ergeyso naarna laga badbaadiyo yaa ugu haboon nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofkii ilaah la ilaha illa allah khalisan min qalbihi qofka kalimadaas ku dhawaaqa wal kalima tayyiba lidhalika wahudu ila at-tayyib min al-qawl culimada in badan ibn abbas radiyallahu ta'ala warda kamidi waxay ku fasireen waa kalimatu la ilaha illa allah kalimada weeyaan marka qofka mu'minka muwafaqa oo wanaag la waafajiyo kalimada ayada ayaa la waafajiyaa في الدنيا وفي الآخرة وفي الموت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة هل كسي الله سوى يويا سيدوك له قفك موفقة ود الله سبحانه وتعالى كلمة وافجي حمدك الله يعرب كيس وجهك تياه يسقوك عمل فلي يسقوا الرميسا يسقوا الرقود الريني قول الله عز وجل إن شكرتم لازيدنكم هدي أديكوا شكرسان عربك قلبك جوارح أديكوا شكرسان وحاويان وإذن كردينيا سيدا أسقوا الرميسان أي قفكي وجد ذاليا منكاس محوها ذكرك الله سبحانه وتعالى أما حمدك الله سبحانه وتعالى سيدا وكله وحلوها نوني هذا الكونكسن يا عباراتك يا أريضة أولي بقفك ودورني مركي اللجوجا إن وناك ذاتك الله فرض مركي اللجوجا إن حمان ذاتك الله قريبه مركي اللجوجا إن ذاتك دينتي الله سبحانه وتعالى قارسيه هذا التاجن هذا الآن محوها نحريس كله هنين هذا العاي أي هرسعته هذا الحمان له لقمت تصوره يكواس إله سبحانه وتعالى هو نجي بل هذا الكود وهذا اللي وهذا أن حرف لهين وهذا التوسن أرنت أيضا وحي كجا ديانيان
أنبياء الله سبحانه وتعالى انت ما حتى نبي محمد كان عليه الصلاة والسلام نبي موسى iyo nabi Harun waxa loo diray Fircawn waad garanaysan Fircawn ninku Fircawn waad garanaysan markaas rabbi wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala idhaba ila Fircawn innahu tagha war Fircawn utaga qooq ayaa ka batay faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru wa yakhsha hadal dabacsan hadal wanaagsan ku dhaha inuu waansamo ama uu rabbi ka baqa laga yaaba ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu ogaa inuu san Fircawn waansamaynin إله هو أجا سبحانه وتعالى إنه فرعون ربي كبقين سبحانه وتعالى لكن والتربية لتربيينا نبي موسى نبي هارون أننا وعلى إثرهم نقول تربيينا ويان بل أنت وحكش درنا محمد عليه الصلاة والسلام وحاول يمد صناديد قريش رجع قريشت وضياشي مدح جبال كرجعها أو قال لي ماذا يا عداوة الدين تاع إسلامك ولي قلت أنا المحوها أنكار سنين كان هردين أنا المحوها هردين إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام أي كذا صار المجال مكة وليبا أي كذا ويمادان مدينة ودبي يمادان دور جر أحد إيه محوها إيو أحزاب لبدا جربة لبدا جربة أي كذا بيضا النبي عليه الصلاة والسلام السنة الثالثة والسنة الخامسة سنة الشنات هي سنة 6 هجرة النبي عليه الصلاة والسلام نمينك أيها الرجل وقتر سنة أي النبي يمد عليه الصلاة والسلام أنتوا سنسوها هاجرين كهرة مركزه محوها عن تربقش إيه هذا المعنى عن كل سنين إيه وحويان bandhig loo bandhigay in diinta islaamka oo nabiga ka joogsada yeeritaanka umada u yeera ayuu bandhigaya nabigeena alayhi salatu wasalaam bi kulli adab wa ihtiram isagoo muxuu ahaa adab iyo dhageysi wacan isagoo ku jira ayuu nabigeena madax u raarixay alayhi salatu wasalaam wali markuu ka baxay oo nabiga jawaab ka sugay wuxuu bandhigaya xoolan ku siinayna boqortooyan ku siinayna xasan ku guurinayna waxa kala islaamnimadan ibaabkan adoo jooji markaas nabiga markuu ninka dhameeyay انتو النبي عليه الصلاه والسلام مدح كور قاday ayaa wuxuu yiri afaraqta abal walid hadalkii ma ka baxday oo hadda fursad ma haysta aan ku jawaabo waxaad garanaysan marka usluubka dacwiga iyo طريقه dacwada waa in aad looga taxadiro uusan noqonin ay uusan noqonin umadi in la jaa'ifay uusan noqonin dadkii in la dhaawaca uusan noqonin dadkii in muxuu ahaa la gaalayo uusan noqonin dadkii muslimiinta aan ka hadlaya محوها لبدعية أيوة محوها بدعانا كنت أجنين وما إلى ذلك مركب قفك مؤمنك وإن النبي محمد عليه الصلاة والسلام النقضة قدوة في قوله وفي فعله وفي ما يعتقده النبي محمد وإنه النقضة عدة ومحوها دبص صعدة وهذا الكيسة إيه قول كيسة إيه قلبي روح لو قبنا بإنتبه والنبي محمد كقول عليه الصلاة والسلام ولي بأرنت وحي سيئة كان مركب آخر قول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن هدي أي حتى اعتمادو إن لمرمه ومناظرة إيه مباحثة لقلو وإن بالتي أحسن مدول بمتكو كفي عني هذا أسلوب والبا إيه تعبير والبا كان أكفي عني وإن لي ماذا ويان ساسو يا ربي كان عدينا سبحانه وتعالى سيدو كلا waxaad ogaataan ikhwat alkiraam ood ku baraarugtaan dadkaas muwafaqiinta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu carabkooda baray inay hadalka wanaagsan ku dhawaaqaan carabkoodii waxaa la waafajiyey dikriga allah subxaanahu wa tacaala dikriga allahna waxaa weeyaan wax sahlan ma ahan lidalika nabigeena sal alla alay slam tashwiiq iyo jeclaysiin ayuu saxaabada ugu dhawaaqay oo wuxuu leeyahay waryaada ma idiin sheegaa camalka aad qabataan kan ugu khayrka badan ma idiin sheegaa كو الله أكتين أو طاهر نما بدن أو محقيمة بدن ميدين شجع أو الدرجة دين حاجة مركل يا أو صار مريم بدن ما يدين شجع وليه أنت معها إن الذهب هي في الضوء صدق شيطان بإحسان إذن كي خير بدن ميدين شجع أو وليه إن عدو جين جهات كل أنتان كدمنا قارت أتكجرتان أذن كان قارت إذن كجران إذن كي قفل بدن ميدين شجع أيو النبي عليه الصلاة والسلام مركز وحويان صحابة جوابته وقرن كرتان نبي الله وإنا نوشك نسكداي نوشك أو نوشك أو نوشك أو نوشك ويان مركز النبي قالنا وحكوس وكوبي هل لبا كلمة ذكر الله وذكرك الله سبحانه وتعالى أنت أن شيء واحد إذن كي خير بدن إذن كي ورق بدن وذكرك الله سبحانه وتعالى وكلمة طيبة وهدوا إلى الطيب من القول وكلمة ونكسن أي أنه حويان إن آديات
looga toghaya weeyaan sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaama dadka marka jannada la geliyo ومؤمنين تجنة إله سبحانه وتعالى وقدر جعلنا الله منهم جميعا مركي جنة لجليو وحالجو إلهامنا ولجو هنونينا هنا قول كاسون أكسن سيدي وسي وضع تحميد دي تسبيح دي سبحان الله دي هي التكبيرتي الله أكبرتي أي سيدا النافته قفك ومحو النافسة ده سيداس أياد ربي سبحانه وتعالى إلهامين دونا ولجو هنونين دونا سيداس أيو نبي جانا عدينا صلى الله عليه وسلم حديث إمام مسلم صاري marka sidoo kale dadka ilaahay subhanahu wa ta'ala khayrka la doonay wuxuu ku ilhaamiyay in ay gacmaha kor taagan inay Allah isu dulayaan inay Allah baryaan saas ay rabbiga subhanahu wa ta'ala ku ilhaamiyay iyaga oo ka qudaraynayaan hadalka uu nabigeena caday sallallahu alayhi wa sallam qofka mu'minka ah haduu gacmaha kor taagan in uu rabbiga subhanahu wa ta'ala yahay mid xishood badan waliba deeqsi kariima ربنا سبحانه وتعالى وحوك حشودا إن وأدون كيس جمعها كرو وسوق هذا كدمنا إيجا فارق وحباينا كجرن ورب سبحانه وتعالى أسوع عليه إيجا هالكاس إيجا بيكسنا إيجا تار رميسن أي دائما وأبدا أي محوها إله بريديسه أين كانوا جايين مرك إخوة الكرام إن كدكتونان ونقولي بقى وجود دكتونان إن قف كون نقد مؤمنك قف لا يكلا عرره قف لغا ليخدو قف لسكا إلاليه قف لغا قابصدو شرتيسة عربكيسة إيا محو إريقيسة دبكا وكانسانا درتت لسكا إلالي إنا نقطة إسكا إلالي الرنت أيضا وخطر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الرنت أيضا وحكم وجي بالقول وبالفعل نمبا سيدي أمنا عائشة رضي الله تعالى وارضاها أي عدينيسة أي فسح ويديستي النبي قريجيس أيو إذن ويديست قريج إنه سوقله أيو دلبضي كديم النبي قال الله شيء صلى الله عليه وسلم وحيري إن كاس الله إدمه نل لا تقمه أما ويل لا تقمه كان يقول لي دم ويان وأنا نقن حوا ساسو كير النبي قال عليه الصلاة والسلام إستجر ما مقلايه كديمنا مركو سوقلي أي النبي قال صلى الله عليه وسلم هذا الكيو دبعي هذا الوناكسن أيو النبي قال كل هذا صلى الله عليه وسلم كديمنا مركو نينك تجي أي عائشة وحيت رضي الله تعالى وردها نبي الله وننكس وحي هذا غيرات كشكتي أو نن لا رقمه ننك أقول لي ده إنه يهات عديسي مركز ما ده هذا كأدب عسي نبي قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم عائشة دتك وحأقول شربا أقول لي دنام بدن حق بوسك يمنزل هذا إلهك سبحانه وتعالى ما ننت قيامه ننك لسجتته أو دور كلا جمره وحكى لما هني شرتيسة إيه هذا الحميديسة عرر لقى عرر أوجد محوها قفك الدور كلا جمر أنا لقوسه اللامين أنا لقوسه اللي حنين قفك إسجع يا الله سبحانه وتعالى ما ننت قيام أجو بوسليته ساسو نبينا عدينا صلى الله عليه وآله وسلم مركدي مؤمنين أنا وحنو بهناي إن عرب كنا أن كنترولنا إن أن إلى لنا إن وحن كل أواقينا إنت أنا كل أواقين قلبك الله سومريه أو سيد الشاه وكل سوميره وحميرا أو نظيفة أو محوها مركان كل واقنا أما أنا أنفعي أما بقى عدي لولاها اللي أنفعي أو واحد يباتك إنسانين إلى أن نقطة ويان ألا عباد الله صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال في كتاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين على أئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وبطن يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.